kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkii falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan iyo wararkii ugu dambeeyay gaan dunida oo dhan daawadayaal qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena maanta waxaa ugu weyn dalka Faransiiska oo lagu eedeeyay wali inuu gumeysanayo qaybo kamid ah dalalka Afrika. Taliban waxa ay leysay in ka badan 100 askari oo ciidanka militariga dalkaasi Afghanistan ah kadib markii qaraxyo weerar culus ay halkaasi ku qaaday. Sacuudi Carabiya waxaa jeel ku dhex dhintay mid kamid ah culimada ugu waaweyn ee dalkaasi Sacuudiga oo xidhnaa kadib markii lagu eedeeyay inuu qoray waraaqo ka dhan ah dawladda dalka Sacuudi Carabiya oo uu ku eedeeyay inay xiriir wanaagsan la leedahay Israa'iil ama ay joojiso xiriirka la leedahay Yuhuudda. Marinka la yiraahdo Kerch ee hore dhibaatada uga dhacday ee dhibaatadii u dhaxaysay dalalka Ruushka iyo Ukraine 14 ruux ayaa ku dhintay maanta. Qodobadaas iyo kuwa kale daawadayaasha qiimaha ku maqli doontaan wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda Horfadhi Media gaan caalamka oo dhan falanqayn iyo xogan iyo warar wacaala ayaa idin haynaa hadii lahayd daawadayaasha qiimaha leh maalinta Jimcaha daawadayaasha qiimaha leh waxaad ku casuumantiin inaad ka soo hadashaan markaan ka soo jawaabtaan warbixintii dhinaca badda iyo kheyraadka la boobayay ee Soomaaliya sida wax looga qaban karo aragtidaada iyo hadaa tahay kaluumayste xog ka haya arrimahaas iyo sida ay saameyn kugu yeelatay kuwa deegaanka xeebaha aad baan u jeclaanahay in arrintan oo kale aad uga soo hadlaan ee wacaalaha xogan arrintaas u haya daawadayaal sidoo kalena khamiista moogaanina barnaamijkii dhinaca falanqaynta dawladnimada Soomaaliya iyo waliba casharadii ku saabsanaa ayaad maqli doontaan qodobadaas iyo kuwa kale ku maqli doontaan wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda waa 22 Janaayo waa maalinimo Saalisa 2019 marka la falanqaynta dunida dawladda Kenya ayaa waxa ay sheegtay in hubkii lagu weeraray hotelka ama deegaanka ku yaala Westlands ee magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ay qaarkood lahaayeen ciidanka dawladda Soomaaliya. warbaahinta dalka Kenya gaar ahaan warbaahinta afka dheer wargeyska la yiraahdo Daily Nation ayaa wuxuu sheegay in weerarkii lagu qaaday hotelka la yiraahdo DCD2 ee magaalada Nairobi gaar ahaan xarunta dhinaca ganacsiga ee xaafadda Westlands ku yaalay in la ogaaday in qaar kamid ah hubkaasi ay lahaayeen ciidanka qaranka ee Soomaaliya isla markaana ay yihiin qoryo ay isticmaaleen kooxdii halkaasi weerarka ku qaaday oo ay sida ay sheegayaan wargeyska Daily Nation Media ee dalkaasi Kenya ayaa waxa uu intaas ku daray in dawladdaasi ay aan la garanaynin meesha ay hubka ka keeneen balse waxa ay sheegeen ayagoo soo xiganaya bay yiraahdeen calaamadda ama sumadda hubkaasi ku taala inay muujinayso calaamadda dawladda Soomaaliya ay ku qorato qoryaha AK47 loo yaqaan oo uu sheegeen in laga helay halka la yiraahdo 14 Riverside Drive waxaana ka muuqatay ay yiraahdeen sumadda ay dawladda Soomaaliya ciidankeeda hubka ku gataan ee la yiraahdo si kastaba ha noqotee dawladda Soomaaliya ayaan arrinta ilaa hadeerta ka hadlin sidoo kale dawladda Kenya ayaan si toos ah uga hadlin balse wargeyska ayaa sheegay inuu soo xiganayo xubno ka tirsan dadka baaritaanada halkaasi ka wada isla markaana lagu ogaaday in hubkaasi la isticmaalay ay lahaayeen ciidanka qaranka ee Soomaaliya oo ay dibadda ka soo gadatay ama ka soo iibsatay halka nagala socotaan Horfadhi Media wararkii ugu dambeeyay warbixinada dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan daawadayaasha qiimaha leh weeyaan halka nagala socotaan dalka Venezuela waxa ay sheegeen wasaaradda difaaca ee dalkaasi inay qabteen ama soo qabteen 27 askari oo kamid ah askarta militariga dalkaasi kadib markii gadoodeen isla markaana ay afduubteen ama ay xanibeen taliyahoodii ayaga maamulayay war qoraal wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Venezuela ay soo saartay ayaa waxay sheegeen in koox kamid ciidanka la xiray kadib markii ay khiyaameeyeen baalidi dhaartii iyo wacadkii ay u mareen dalkooda hooyo isla markaana waxa la sheegay in arintaasi ay tahay ayaa la isku day ay kooxdaasi ay ku doonaysay inay ku falloogmaan TV-ga qaranka dalka Venezuela ayaa waxa lagu sheegay in wasaaradda gaashaandhiggu hatan gacanta ku hayso isla markaana la ciqaabi doono askartaas amar diidada sameysay gacan biraan lagu qaban doono 2 habeenimo kolkay ahayd ama waa 8 saac iyo 50 daqiiqo 9 saac oo 10 dhiban ama 3 habeenimo oo 10 daqiiqo dhiban ayaa la sheegay in kooxduna ay bilaabeen in ay la murmaan isla markaana ay xoog ku gaxaystaan kabtankii madaxda u ahaa iyagoo la sheegay in sidoo kalena ay galeen saldhig booliis oo ku yaala galbeedka magaalada Caracas ee xarunta dalkaasi Venezuela ka hor inta aysan ku dhawaanin baa deegaanka madaxweynuhu degan yahay ee la yiraahdo Miraflores ee magaalada Caracas waxa la sheegay in kooxdana ay lugaysay ilaa 3 kilomitir isla markaana ay meel u dhow xarunta madaxtooyada ay kolkii dama kala baxeen qoryo door u dhacay iyo baabuur gaashaaman si kastaba ha noqotee kooxda ayaa la sheegay in gacanta lagu dhigay isla markaana haatan ay maxkamad sugi doonaan war qoraal oo barta Twitterka ay ku soo qoreen hogaamiyaasha mucaaradka ee dalkaasi ayay taageero ugu direen kooxdan iyadoo gudoomiyaha aqalka sare isagu mucaarada uu sheegay in talaabadana ay dhiirigelinayso waxa uu ugu yeeray in ay soo celiyaan dastuurka iyo kala dambeyntii dalkaasi John Guaido waxa uu sheegay in kooxda mucaaradka ee National Assembly-ga ama aqalka sare ee dalkaasi ay ku caawin doonaan ciidanka wixii karaankooda ah in sharciga lagu soo celiyo hase yeeshee war qoraal ay soo saareen militariga ayaa waxay yiraahdeen
ciidanka loo yaqaano ayay yiraahdeen Bolivarian National Armed Forces waxa ay ka hortageen ayaa la yiri mucaaradad iyo doqonnimo ay sameeyeen baa la yiri koox ka mid ah ciidanka oo markii hore u dhaarsaneed ayaa la qaranka kuwaasoo dalkeena aabe doonayay in ay u keenan cadowga ayuu yiri Diosdado Cabello oo ah madaxweynaha markaasi guddiga dhinaca madaxtooyada taageersan ee qaranka dalkaasi wuxuuna sheegay in talaabada laga qaadi doono ay noqon doonto mid 10 ilaa waana loogu dhigo kooxdaas halka nagala socotaan waa wararkii ugu dambeeyay warbixinta dhinaca diblomaasiyadda ee dalalka Faransiiska iyo Talyaaniga ayaa hadalla kulkulis dhaafsaday kadib markii dalka Talyaaniga wasiir ka tirsan uu ku eedeeyay dowladda dalkaasi Faransiiska inay wali gumaysanayso qaaradda Afrika isla markaana dalal badan oo Afrika ah ay dhibaato gumaysi ah ay ku jiraan balse aan la ogeyn dowladda Faransiiska ayaa iyadoo arrinta ka jawaabsay waxay u yeedhay safiirka Talyaaniga u fadhiya dalka France kadib markii uu sheegay Lung Diamao oo ah ninka markaasi gudoomiyaha xisbiga la yiraahdo xisbiga Shangest ama 5 Star Party uu ku eedeeyay ama dhaqdhaqaaqa la yiraahdo dhaqdhaqaaqa la yiraahdo 5 Star Movement uu ku eedeeyay in dowladda Faransiisku ay sameynayso wuxuu ugu yeeray habdhaqan aysan wali ka gudbin wali ka wada gudbeen buu dhamaan dalalkii adduunka gumaystay wuxuuna sheegay in aysan gumaysiga wali joojin Faransiisku wali ma uusan joojin inuu gumaysto 10 kamid ah qaramada Afrika ayuu yiri wasiir Luigi Diamao wuxuu intaasi ku daray in dawladdiisu ay cadeyn u hayso in qulqul qaxoontiga ay tahay mid ay raaxa ka qaadayaan Faransiiska oo uu sheegay in dadka ka soo qulqulaya waqooyiga iyo galbeedka Afrika ee kulli aanaya wadi gudaha badda Mediterranean-ka ay tahay ayuu yiri mid ay kasmo u abuurayaan Faransiiska oo uu sheegay inay dalalkaasi dhaqaalahooda ku fadhiyaan isla markaana wali ay ku hayaan ihtilaal ama wuxuu ugu yeeray gumaysi xooggan oo gudaha ah oo ay dalkaasi ka wadaan waxa uu sheegay in ay taasi tahay mid iska cad waxaana uu tasaale u soo qaatay wuxuu yiri 14 dal oo kamid ah dalalkan wali waxa lacagtooda maamulo oo lacagtooda u soo sameeya ayuu yiri dalka Faransiiska oo ay taasi macnaheedu tahay in ay dalalkan ka dhaqaaqi laayeen Faransiiska oo wali ku haya buri gumaysi dhinaca maskaxda ah dalalkaasi isla markaana qaarkood ku qasbay inay luqadooda ku hadlaan wuxuu intaasi ku daray in ay inuu Faransiisku noqon lahaa dalka 15aad ee ugu dhaqaalaha roon dalalka caalamka laakiin hadda uu ku jiro ayuu yiri 6 dal ee dhaqaalahooda ugu sareeya caalamka taa macnaheedu ma aha buri in Faransiisku uu lacagtaasi asagu kasbaday ee waa lacag laga soo dhacay isla markaana laga mu'aamaradeeyay ayuu dalalka Afrika waxay wali ku jiraan ayuu yiri ihtilaal ama wax loo yaqaano gumaysi ayuu sheegay oo si caral u sheegay hase yeeshee war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Faransiiska ayaa si degdeg ah loogu yeeray safiirka Talyaaniga oo fadhiya Faransiiska Teresa Castolo waxaana loogu wacay wasaaradda arrimaha dibadda si uu uga jawaabo hadallada kulkulul ee ka soo baxay wasiirkooda isla markaana ah hogaamiyaha xisbiga la yiraahdo dhaqdhaqaaqa markaasi Shangest oo uu sheegay markaasi ama 5 Star wax la yiraahdo movement wuxuuna sheegay in ay taasi ay ka tarjumayso nacaybka iyo waliba siyaasadda xumaatay ee dalka Talyaaniga oo ay la wareegeen balay kooxo janibka ka soo horjeeda ama ka soo horjeeda wakaaladda wararka ANSA ayaa waxa ay war qoraal ah lagu soo qoray oo ka soo baxay dalka Faransiiska lagu yiri hadalka ka soo yeeray wasiirka ama diblomaasiga baa la yiri Faransiiska ka dhanka ah ee Talyaaniga ah waxa uu yahay mid cawaaqib xumo wada isla markaana colaad hurinaya isla markaana xumeynaya cilaaqaadka ka dhaxeeya Faransiiska iyo Talyaaniga iyo gabi ahaanba waxa la European Union hase yeeshee Mr Diamao ayaa wasiirka shaqaalaha iyo isku ahna wasiirka maaliyadda ee dalkaasi ayaa hadalkaasi ka jawaab celiyay wuxuuna dawladaha midowga Yurub ugu baaqay inay Faransiiska cunaqabateyn degdeg ah saaraan oo ay ku cunaqabateeyaan ayuu habdhaqamada uu dalalka Afrika uu ku hayo oo ay sheegeen in wali gumaysigii laga gudbay wali qarnigii 20aad ay wali dabada sii hayaan Faransiisku waxa uu ka mid yahay ayuu dalalka sida gurcan u maamulo 14 dal oo qaramada Afrika ku yaal asaga oo ka fogeynaya dalalkaasi inay xagga dhaqaalaha horumar ka gaaraan ama taasi waxa ay tahay ayuu inay tan ay sababtay dhimashada qaxoontiga ku dhex dhimanaya ayuu badda Mediterranean-ka taasi waa waxa ay kasbeen ama waa qiimaha ay ugu kacday Afrika ayuu hadii Yurubiyaanku ay doonayaan inay noqdaan buurgeesiin isla markaana xuquuqul insaanka ay sheeganayaan uu ka dhab yahay waxa waajib ku ah inay ku dhiiradaan in ay farageliyaan ayuu dhaqan gumaysiga dhaqaale ee Afrika ka soconaya ee lagu hayo ayuu si cadal u yiri wuxuu sheegay in dalka Talyaanigu uu ka aamusi doonin wuxuu ugu yeeray habdhaqamada
nimada ama laba wajiilanimada uu yiri Faransiiska iyo Yurubiyaanku ay ku dhaqmayaan kolka ay timaado in la gacan bidixeeyo ayuu yiri dalalka qaaradda Afrika oo sheegay in aan loo ogolayn inay horumar dhanka dhaqaalaha iyo dhanka waxbarashada tiknoolajiyada iyo dhinaca militariga ay sameeyaan taasina ay tahay tan soo dadajinaysa in dalalkaasi ay kullu xubnaadaan ayuu yiri dalal dhowr dhanka kalena isla arintan isla qadiyadan haatan laga hadlay qadiyad la xiriirda ayaa ururka socdaalka adduunka ee qaramada midoobay u qaabilsan hay'adda la yiraahdo International Organization for Immigration IOM waxa ay sheegtay in 200 oo qof oo soo galooti ah ay ku qaraqmeen biyaha badda Mediterranean-ka iyagoo ka soo kicitamay xeebaha dalkaasi Libya hay'adda the International Organization for Immigration waxa ay sheegtay war qoraal ay soo saartay in maalintii Sabtida ahayd ay laba doonyood oo baca samaysan oo aan ahayn bay leeyahay koox naf aadana lagu hadlay karo ay ku qaraqmeen balibada gudaha Mediterranean isla markaana ay ku dhinteen 117 ruux warka qoraalka waxay sidoo kale sheegtay in tan iyo sanadkii hore dadka dhintay dadka markaasi soo galootiga ay gaarayaan 2297 ruux waxayna sheegeen in dadka kale la yahay ilaa hadeerto ay intaas ka badan yihiin waxayna sheegtay in dadka soo gaaray qaaradda Yurub ay gaarayaan 116,959 oo ruux oo badda ku yimid hay'adda IOM waxay sidoo kale sheegtay in 16 maalmood ee ugu horeeyay sanadkan 2019 ay dadka ilaa hadeerta soo gaaray qaaradda Yurub ee ka soo kictamay qaaradda Afrika ay gaarayaan 4,216 ruux ayadoo sheegtay in ay taasi ka badan tahay laba jeer ayaa la yiri dadkii gaarayay 2,365 ee sanadkii hore xilligan oo kale ka joogay qaaradda Afrika gudaha Yurub waxa ay IOM ay ku cambaaraysay dawladaha ay kamid yihiin Talyaaniga iyo dawladda dalkaasi kale ee reer Yurub inay dawladaha kale reer Yurub inay sameeyaan ay yiraahdeen taxadar la'aan ku saabsan dadka soo galootiga ah ee Afrikaanka ayadoo sidoo kalena aad loogu cambaareeyay dawladda Talyaaniga oo 393 ruux dib ugu celisay gudaha dalkaasi Libya waxaana dawladda Itaaliya ku dhawaaqday in qof kasta oo ay ka badbaadiso badda ay dib ugu musaafiri doonto Libya 393 ruux ee laga qaaday badda gudaheeda markaana Libya loo celiyay ay qabteen ilaalada loona gacan galiyay ilaalada xeebaha Libya waxa ay la mid tahay ayaa dad loo gacan galiyay libaaxyo oo kale ayaa la yiri ama bahalo oo kale hase yeeshee wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Talyaaniga ayaa ku gacan saaray wuxuuna sheegay in dadkaas ay u gacan galiyeen ayuu yiri shalay kuwa xeebaha ilaaliya ee Libyaanka ay yihiin kuwa nabad qaba isla markaana caadi wuxuuna sheegay Matteo Salvini inay sii wadi doonaan inay dadka iska caabiyaan isla markaana iska celiyaan xisbigiisa midigta fog isla markaana nacab dadka soo galootiga ayuu wuxuu ku tilmaamay inay guul ka gaareen siyaasadda ah in dadka dib loo celiyo wuxuuna sheegay intaas ay yareysay dadkii ku soo qulqulayay dalkiisa Talyaaniga ee sida baahsan u soo galiyay hase yeeshee hay'adda Human Rights Watch ayaa ku tilmaantay habdhaqanka Talyaaniga inay tahay mid laga naxo hay'adda ayaa waxa ay sheegtay in ay ogaatay in dadka biyaha caalamiga laga qabtay ee dib loogu celiyay dalka Libya ay xadgudub ku tahay sharciga caalamiga international law la yiraahdo isla markaana ay tahay bahalnimo lagu sameeyo dadkaasi maadaama Libya aysan ka jirin dawlad jabhaduhuna ay dadka laayaan garaacaan cuntada u diidaan qaarkoodna ay gumeystaan waxaana la sheegay in dadka qolal yar yar iyo meelo xerooyin la sugu keeno iyadoo dadka qaarkood ay qabaan xanuuno xun oo ay kamid tahay xanuunka waxa la yiri qaaxada iyo xanuuno kale oo faafa taasoo sahasha inay dhammaan dadku isqaatiyaan Fensani Koshlit oo ah ergeyga qaramada midoobay ee isaguna u qaabilsan hay'adda qaxoontiga u qaabilsan qaramada midoobay UNHCR ayaa waxa uu sheegay in xaaladda dadka la celiyay ay tahay wax laga argagaxo wuxuuna ku tilmaamay inay tahay arintaas arin bahalimo ah hase yeeshee Judith Sunderland oo iyadu gabadha Human Rights Watch ee warbixinta kale soo saartay ayaa waxay sheegtay in ay ka argagaxeen sawirro laga soo qaaday xiriyo dad lagu hayo oo ku yaala dalkaasi Libya oo ay ku tilmaantay inay tahay wax aad looga argagaxo ama aad looga xumaado halka nagala socotaan daawasha qiimaha leh waa Hurfadhi Media iyo wararkii ugu dambeeyay wacaalihii dunida oo dhan dalalka 8 ah ee ku midaysan ururka la yiraahdo D8 ee dalal 8 ah oo muslimiin ah oo horumar dhinaca dhaqaalaha ka sameeyay ayaa waxay ku dhawaaqeen inay sameysanayaan credit card ama kaarka deymaha ee lagu isticmaalo lacagta oo dalalkaasi ka dhaxeeya oo dal walba marka dalka qofkaas markuu dalka kale joogo uu isticmaalayo lacagta dalkiisa hooyo guddigan oo dalalka la yiraahdo D8 oo la sameeyay sanadkii 1995 ayaa waxa ay sameysteen qorshe la yiraahdo qorshaha 20 sano waxayna qorshahoodii koobaad ay fuliyeen dhawaan isla markaana warbixintii ugu weyneed ka soo saareen sanadkii 2008 waxayna sidoo kale haatan ay ku dhawaaqeen inay sameeyaan qorshaha ugu weyn ee hadeerto ee horumarka ka gaari doona
ninka ururkaasi madaxda ka ah ayaa waxa uu kaga dhawaaqay magaalada Istanbul ee xarunta dhinaca ganacsiga ee dalka Turkiya in ay haatan ku dhawaaqayaan isla markaana ay gaadheen ayuu himilooyinkii ay indhaweetaba sida hoose u wadeen oo sheegay in dalalku haatan ay horumar ka gaadheen. Dato Kushari oo ah xogayaha guud ee ururka D8 ee asagoo u dhashay dalkaasi Malaysia ayaa wuxuu sheegay in kaarkan lacagta ama credit cardkan ay dadku u isticmaali doonaan dalalkaas oo dhan kasoo jeeda ganacsatada, dawladaha, saraakiisha iyo dadka shaqaalaha oo dhan ay u isticmaali doonaan buuri lacagtaas. Wuxuu yiri 15 June sanadkii 1997 markii aanu sameynay ayuu yiri arrintan waxaanu lahayn ayuu yiri qorshe fog. Waxaana arrintaas soo jeedinteeda marka hore la ra'iisul wasaarihii xilligaas ee dalkaasi Turkiya ee loo jeeday Niqmaddin Erbakan. Haatanna waxaanu dib u bilownay ayuu yiri oo dib u eegnay shirkii ugu horeeyay 2018 waxaan ku dhawaaqnay ayuu yiri dhammaan qorshayaashii aan horumar ka gaadhnay ay tahay qorshayaasha dhinaca wuxuu yiri warshadaha, dhinaca beeraha, dhinaca hubinta cuntooyinka, gaadiidka, becsharada ku saabsan ayuu yiri wuxuu yiri isdhaafsiga iyo waliba wuxuu yiri energy-ga ama waxa loo yaqaan tabarta iyo waliba dalxiiska oo uu sheegay dhamaantood in horumar laga gaaray. Dalalka ayuu ku tilmaamay inay haatan higsanayaan qorshayaashoodii ugu dambeeyay iyadoo asagoo sheegay in dalal gaabis ku jiray haatan xaaladooda la xaliyay. Sideeda dal ee la yiraahdo ama sideeda dal ee ururkan ku midoobay ayaa kala dalalka Bangladesh, Masar, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan iyo Turkiya. Waxaana haatan ay noqdeen ayaa la yiri laba dal oo kamid inay kamid yihiin 20 dal ee dunida ugu dhaqaalaha badan oo ay ku jiraan ururka G20 waa labada dal ee Turkiga iyo Indonesia. Waxa uu safiirka oo ninkan oo aad u haajiray safiir in badan u fadhiyi jiray dalkaasi Malaysia dalal badan oo leeyahay Dato Kushari waxa uu leeyahay dalalkan waxaanu qorshaha iyagu uu haatan yahay halbeega iyagu in sanadka 2019 marka uu dhamaado dalalkaasi ay yeeshaan ganacsi xor ah isla markaana ay horumar ka gaadhaan. Wuxuu yiri waxaanu ansixinay ayuu yiri protocol cusub oo loo yaqaan buuri protocol of cooperation buuri kaasoo ah buuri wada shaqayn iyo wax wada qabsi oo uu sheegay inuu yahay ahdi ay dalalka ku heshiiyeen. Wuxuu yiri ururkan oo la yiraahdo the Developing Aid Organization for Economy and Cooperation oo loo soo gaabiyay D8 wuxuu yiri wuxuu noqon doonaa mid hoga tusaale u noqda dalalka caalamul islaam isla markaana ay noqdaan ayuu dalalkan ku ayagu marka u horeysa dhinaca tiknoolajiyada, beeraha, wax soo saarka, tabarta iyo waliba wuxuu yiri dhinaca warshadaha iska kaashada kadibna dalalka kale ee walaalaha u gacan haadiya asagoo sheegay in ay baraare ka gaareen dhammaan dhinacyadii hore ee arrimahaasi ay kaga markaasi ay ka shaqeeyeen ama ay runtii iska kaashadeen ayuu. Qaybta dambe wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda daqiiqadan soo socota wadayaal ha mogaan.